waxa uu ku caan baxay aftahanimo iyo khudbadihiisii taariikhda galay. Waxa uu xifdiyey Qur'aanka Kariimka ah isagoo aad u da'yar. Markii uu nin weyn oo mas'uul ah noqdayna, afartii cishaba hal mar buu Qur'aanka dhammayn jiray. Waxa uu amar ku bixiyey xarakaynta Qur'aanka iyo in calaamadaha icraabta loo sameeyo. Waxa uu ka talin jiray imaaraddii ugu ballaadhnayd ee dowladdii Umayyadeed, taas oo u qaabilsaneyd furashada dhulalka shisheeye. Waxayna ciidamadiisu furteen in badan oo ka mid ah dhulka Hindiya iyo dhulkii kale la odhan jiray As-Sind amba Baakistaan imika. Kadib markii uu ka takhalusay kacdoonnadii dowladda gudaheeda ka aasaasnaa oo uu gebi ahaantoodba soo gabagabeeyey, waxa uu sameeyey lacag u khaas ah dowladdii Umayyadeed oo lagaga maarmo lacagaha qalaad ee wax lagu kala iibsado. Waxa uu bilaabay oo uu sameeyey magaalada Waasit ee ku taalla dhulka Ciraaq, taas oo lagu qiyaaso lacagtii ku baxday dhisitaankeeda iyo qalabaynteeda $1 bilyan oo lacagta maanta ah. Laakiin waxaas oo dhan waxa garab socday in uu dilay in ka badan 120,000 oo qof oo dad muslimiin ah u badan, waxaana ka mid ahaa dad badan oo akhyaartii taabiciyiinta ah. Asxaabtii nebiguna sallallahu calayhi wasallam kamay nabadgelin oo qaar badan oo ka mid ah wuu laayay. Waxa kale oo intaa u sii dheer in uu dumiyey Kacbada sharafta leh ama Baytullaahi al-Xaraam kadib markii uu la dhacay majaaniiqduna waxay ahaayeen lugniyeerkii wakhtiga la adeegsanayay. Haddaba ninkan aynu maanta taariikhdiisa ka hadli doono, dadkii mu'arikhiinta ahaa ee taariikhdiisa inoo soo gudbiyey aad bay isugu khilaafeen, waxayna u kala baxeen qaar isaga taageera oo waxa uu qabtay ku taageera, iyo qaar kaloo ka soo horjeesada oo dulmigiisii iyo gaboodfalkii uu dadka u geystay ku xukuma. Maantana xalqadeennan waxay daaran tahay saad ciwaanka xalqadaba ku soo aragteen, ninkii la odhan jiray Xajaaj bin Yuusuf Athaqafi. waxa uu dhashay Xajaaj bin Yuusuf Athaqafi sanadu markay ahayd 41 Hijriyada, waxaana uu ku dhashay magaalada Daa'if. Xajaaj Qur'aanka waxa uu dhigay aabihii, waxaanu xifdiyey isagoo aad u da'yar. Intaa kadibna macallin buu noqday oo isaga ayaa ardayda Qur'aanka qaybsiin jiray. Waxa uu ka dhashay Xajaaj qoys aad u fiican, yaraantiisina waxa uu ku qaybay Qur'aanka. Markii uu dhammeeyeyna shaqadii aabihii oo macallinimo ahayd ayuu qabtay oo isaga ayaa ardayda u dhigi jiray Qur'aanka. Intaas oo keliya kuma ekaan Xajaaj ee waxa uu si fiican u dhigtay cilmul xadiid. Waxa kale oo uu fiqigana ka dhigtay qaar ka mid ah asxaabtii nebiga ee waaweyneyd. Haddaba wakhtigaas jasiiradda carabta waxaa ka jiray khilaaf siyaasadeed oo aad u weyn. Kadib markii ay dhacday khilaafadii ugu mudnayd dowladihii iyo xukuumadihii islaamka oo dhan ee la odhan jiray al-khilaafa ar-raashida, waxaa bilaabmay casrigii ad-dawla al-Umayya, waxaana ugu horeeyey Mucaawiya bin Abi Sufyaan. kadib markii uu dhintayna waxaa xilka qabtay inankiisii Yaziid bin Mucaawiya. haddaba markii uu Yaziid hayay xilka ummaddii muslimiinta, waxaa la dilay inankii uu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu awowga u ahaa ee la odhan jiray Xuseen bin Cali radiyallahu canhu. intaas kadibna waxay u kala qaybsantay dowladdii Umayyiyiintu laba qaybood oo ay mid waliba sheeganayso khilaafo islaami ah. labadoodaas mid ka midna waxay ka talinaysay dhulka Xijaas, Masar iyo Ciraaq. caasimadna waxa u ahayd Maka, waxaana ka talinayay mid ka mid ah asxaabtii nebiga oo la odhan jiray Cabdillaahi bin Zubayr radiyallahu canhu. waxaana dhashay asxaabiyadii fadliga badan lahayd ee la odhan jiray Asmaa bintu Abi Bakar ee lagu naanaysi jiray daatu nidaaqayn. dowladda labaadna waxaa ka talinayay Marwaan bin Xakam. kadib dhimashadiisina waxaa kala wareegay inankiisii Cabdilmalik bin Marwaan. dowladdaasna waxay ka aasaasnayd oo ay ka talinaysay dhulka Shaam. inta kale jasiiradda carabtana waxay haysatay khawaarijtii. haddaba wakhtigaas ay siyaasaddu aad ka wackarnayd, waxaa la tilmaamaa inuu Xajaaj markii hore doonayey inuu ku biiro ciidanka Cabdillaahi bin Zubayr, laakiin maalmaha ka mid ah ay jidgooyo ku sameeyeen ciidankii Cabdillaahi bin Zubayr. Xajaaj isaguna cadaawad ayuu u qaaday, waxaanu ku biiray ciidankii kale Cabdilmalik bin Marwaan. cabdilmalik bin marwaanna waxaa ka dhex guuxayay damac ah inuu ku mideeyo dhammaan dadka muslimiinta ah dowlad isaga xukunkiisa hoos timaada. waxaanuu isugu yeedhay dhammaan madaxdii ciidamadiisa, waxaanuu sheegay inuu doonayo inuu qabsado dowladdan kale ka aasaasan Xijaas. markiibana Xajaaj ayaa soo booday oo isku soo sharaxay inuu ka hortago Cabdillaahi bin Zubayr oo uu soo baabiyo dowladdiisa. waxaanuu yidhaahday, waxaan ku riyooday aniga oo dilay Cabdillaahi bin Zubayr oo gebigiisaba diirka ka saaray ee aniga ii dir. cabdilmalikna wuu ka ogolaaday maadaama uu ka arkay adayg iyo awood aanu ciidamadiisa kale ku arag. waxaanu hoosta ka xariiqay inuu yahay ninka soo gebagabayn kara loolankan siyaasadeed ee u dhexeeya isaga iyo Cabdillaahi bin Zubayr. intaa kadibna Xajaaj waxa uu soo kaxaystay ciidan laxaadle, waxaanuu soo kacay xagga iyo dowladdii uu ka talinayay Cabdillaahi bin Zubayr radiyallahu canhu. Xajaajna waxa uu waajanan ciidan oo khidadaha dagaalka aad ugu dheereeya. judhii ugu horreysayna waxa uu ka qabsaday Cabdillaahi bin Zubayr dhul aad u fara badan oo ay ka mid yihiin dhulka Masar, Ciraaq iyo Yaman. gacanta Cabdillaahi bin Zubayrna
waxaa ku soo hadhay dhulka xijaas oo keliyata. xajaajna intaasoo keliyata kagamuu hadhin ee waxa uu si baan u go'doomiyey dhulkii xijaas ee ay maki ku taallay. waxaanu hareeraha magaalada makee sharafta badan dhigay majaaniiq. dadkii reer makana wuxuu la dhacay dhagaxaan aad u waaweyn iyo dab ilaa iyo heer kacbada qaybo fara badan oo ka mid ah ay burbureen. dagaalkaas qadhaadhna wuxuu socday ilaa iyo intii laga dilay cabdilaahi bin zubayr radiallahu canhuye. xajaajna intaa uu soo qabtay jirkii cabdilaahi bin zubayr radiallahu canhuye ayuu ka laalaadiyey magaalada maka ilaa iyo muddo 3 cishaa si uu ugu muujiyey cabdilmelik bin almarwaan sida uu daacadda ugu yahay. cabdilmelikna wuxuu sidaas ku noqday khaliifka amba xaakimka ka taliyay dhammaan dhulka muslimiinta oo dhan. markii uu dagaalkaasi dhammaaday kadib xajaajna waxaa abaalmarin ahaan loo guddoonsiiyey dhulka xijaas si uu xaakim uga noqdo. muddo yar oo uu ka talinayay kadibna waxa uu gaadhsiiyey dhulka xijaas ilaa iyo heer isku filnaansho aad u sarreeya. waxaanu u qoday ceelal biyo xidheenana uu sameeyey. intaa kadib waxaa ka bilaabmay dhulkii ciraaq kacdoonno aad u badan oo waxay ku dhowaatay heer ay ka faramuruxsato oo ay ka baxdo faraha dowladda gebigeedaba. xajaaj ayaana ka codsaday khaliifkii dowladda inuu u diro arrinkaas si uu u soo gebagabeeyo, isaguna wuu u oggolaaday. haddaba markii uu yimaaday xajaaj dhulkii ciraaq waxa uu isugu yeedhay dhammaan bulshadii deganay si uu khudbad ugu jeediyo. isaguna intuu mimbarka koray ayuu sugay oo uu aamusay ilaa intii dadku aamusayaan, laakiin aamusnidii buu ku dheeraaday. dadkiina waxay ka moodeen daciifnimo oo qaar baa yidhaahdayba waxay noo soo direen ilmo yar oon hadalkaba garanayn, laakiin may garanayn in ciddan hortaagan ay tahay xajaaj bin yuusuf. hadalka uu maalintaa odhan doonaana uu taariikhda geli doono. xajaajna waxa uu hadalkiisa ku bilaabay: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. ثم أردف: يا أهل الكوفة، إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، وكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى. waxaanu uga jeedaa ana ibnu jala wa dallaaci thanaaya, anuu waxaan ahay nin caan ah oo aanay weligii waxna hor istaagin. mataa adacu alcimaamata tacrifuunii, markaan cumaamadda iska dhigo ayaad garan doontaan. markaa cumaamad wejiga ku duubnaa. qaybta kalena waa hanjabaad oo wuxuu uga hanjabayaa dadkan hor fadhiyo uu ku leeyahay: yaa ahla alkuufa, innii la araa ru'uusan qad aynacat waxaana qadfuhaa wa innii la saaxibuhaa. dadkan kuufa deganow, waxaan arkayaa madaxyo bislaaday oo ay gaadho wakhtigii la goyn lahaa, anigaana goosanaya. marka wuxuu uga jeedaa waan idin laynayaa, ama qaar badan baa maanta igu baxay waa xaggii soomaalide. waka'annii anduru ila addimaa'i bayna alcamaa'imi wallixaa, waaba sidiioo aan dhiigga ka arkayo inta u dhaxaysa cumaamadda iyo garhka oo uu qoorta u jeedo. intaas kadibna wuxuu khudbad kale u jeediyey reer basra oo wuxuu u ballan qaaday qofkii duulimaadka ka hadhay dagaalkaa raaci waayey isaga inuu dilayo. iyaguna intay baqeen bay dagaalkii wada galeen, waayo cidda la hadlaysa waa xajaaj oo wuxuu idhaahdaba ka dhaweeya. xajaajna ciidamada uu ururiyey waxa uu ku damiyey kacdoono badan oo ay ka mid ahaayeen thawratu ibnuljaaruud iyo kacdoonkii mutrif binulmugiira, waxaana ugu caansanaa kacdoonkii cuthmaan binulashcaf. cuthmaan binulashcafna wuxuu ahaa mid ka mid ah janannadii uu xukumi jiray xajaaj, waxaana uu ku maqnaa dagaalkaa markuu ka soo noqdayna waxa uu iclaamiyey inuu ka goostay ciidankii xajaaj oo uu isagu gooniyu isku taagay. waxaana arrinkaa ku raacay qaar ka mid ah taabiciintii waaweynaa sida taabicigii weynaa ee la odhan jiray saciid ibnuljubayr raximahullah. laakiin dhaqdhaqaaqaas waxa uu ku soo gabagaboobay dagaalkii la odhan jiray dayruljamaajim sannadu markay ahayd 83 hijriyada. xajaaj waxa uu sameeyey waxyaabo aad u fara badan oo wanaag iyo xumaanba isugu jira, laakiin siaan horeba idinku soo sheegay raggii mu'arikhiinta ahaa ee taariikhdiisa inoo soo gudbiyey way isku khilaafeen ninkaas oo waxay u kala baxeen qaar isaga ku taageera waxa uu sameeyey iyo qaar kaloo kaga soo horjeedsada. inta ugu badanna raggii wakhtigiisii noolaa iyo qarniyadii ka dambeeyey waxay ku tilmaami jireen nin daalim ah oo dhulka fasahaadiyey, halka culimmadan dambe ee casriyadan dambe noolayd ay u cudur daaraan oo ay yidhaahdaan waxaasoo dhan wuxuu sameeyey daacati weliyil amr iyo midaynta ummadda muslimiinta ee kala tafaraaruqsanayd. haddaba waxaynu soo qaadan doonaa hadalkii ay ka yidhaahdeen asxaabiyaddii la odhan jiray asmaa bintu abibakar radiallahu canha iyo amiirka aad garanaysaan amba khaliifkii umowiyiinta ee la odhan jiray cumar ibnulcabdilcasiis. asmaa bintu abibakar radiallahu canha ayaa waxa ay ku fasirtay xajaaj bin yuusuf xadiiskii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee uu yidhaahday: yakhruju min bani thaqiif kadaabun wa mubiid. waxaa ka soo baxaya qabiilka bani thaqiif in beenaala ah iyo mid kaloo dadka baabi'iya oo madhiya. waxayna sii raacisay ama alkadaab faqad carafnaah, kii beenaalaha waanu garanay oo waxay u jeeday ninkii la odhan jiray mukhtaar binu abi cubayd ee nebinimada sheegtay. mubiidkana waxay ku macnisay xajaaj oo waxay tidhahday: wa ama almubiir falaa araahu hayrak, iyadoo xajaaj u jeeda. cumar ibnu cabdilcasiisna mar la weydiiyey xajaaj waxa uu yidhaahday: haddii maalinta qiyaamaha ummad walba ay daalimkaygii la timaado oo meel la istaajiyo oo inagana xajaaj laynaga soo dhex saaro oo laysku muqaaraneeyo, xajaaj ayaa ka badin lahaa gebigoogaba. haddaba xajaaj binu yuusuf waa ninka ay dulmigiisa
dadka waaweyn akhyaartii muslimiinta ka mid ahay ay ku markhaati fureen. Inkastoo uu camalo fiican oo badan lahaa, laakiin haddana camaladiisii oo dhan waxaa daboolay dulmigiisii. Waxaan rajaynayaa in taariikhda maanta aad inaba wuxuun ka faa'iideen. subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk.